بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، ولا ليال ما أنت وحان جعليستي إن أن إذا لو ذاقه حوغاه يرو كسابسا فضلك إن لو صلي نبي محمد صلى الله وسلم عليه أي أولى يظهر روح مؤمنك أما قبضنا مؤمنة أن يراهده haddii ay ku saliyaan nabigeen maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh ajarka iyo sawaabka ay ka helayaan ayaan doonayaa xoogaa yar inaan kasoo yar halqaafo maanta haddii alla idmo insha allahu tacaala. marka fadliga salaada in loo baryo nabigeen maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh in loo duceeyo waxaaba ay ku idishahay xadiidkii kasoo arooray nabigeen maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh ee ubay ibn kacab ee uu ku weydiinaya uu lahaa nabigeen maxamed ahow ama rasuulka allow in badan ayaan kugu saliyaa maalintii, marka intee ayaa habboon ma rubac ayaan ka dhigaa salaadaada oo aan kugu salinayo? markaasuu yidhi waa wanaagsan tahay, haddii aad ku dartana way ka khayr badantay. ilaa iyo markii dambe uu kusoo gebagabeeyey salligayga oo dhan ee aan kugu salinayo waxaan ka dhigayaa waqtigayga oo dhan waxaan ka dhigayaa salligaaga ayaan ka dhigayaa. oo nabigeena marka maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh aakhirka uu ku yidhi idan tukfa hamuk, haddii aad waqtigaaga oo dhan aad ka dhigto oo wardigaaga o dhan aad ka dhigto sallinta aad igu salinayso haddii aad ka dhigto waxay la micno tahay markaas in allah subxaanahu watacaala hamigaaga uu kaa kaafinayo, uu kaaga filnaanayo, wayukfaru dambak, dembigaagana uu dhaafayo. marka walaalayaal, ujeeddada aan ka leeyahay maaha maanta arrintaas iyada maaha. marka waxa ay tahay ujeeddada aan ka leeyahay maanta aan doonayo inaan idinla wadaago waxa ay tahay nabigeen maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh haddii aanu ku sallinno salligaasi fadliga aan ka helayno ma mid aakhira ku kooban ba mise waa mid aanu faa'iidadiisa helayno adduunka korka la joogo iyo aakhiraydayna intaba? haddaba waxaan soo qaadanayaa sheeko waaqici ah oo dhacday oo xaqiiqo ah oo run ah ayaan u soo qaadanayaa arrintaas iyada ah ayaan u soo qaadanayaa oo ah in ku sallinta suubanayn maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh adduun iyo aakhiraba inay ka anfacayso. waxaa dhacday nin ka mid ah asxaabihii hore ee rasuulkeena maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh oo salafkii hore ka mid ahaa ayaa waxa uu caadaystay maalintii in uu ku salliyo ilaa iyo 1000 jeer nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh 1000 jeer in uu ku salliyo maalintii ayuu caadaystay. hase yeeshee waxaa la soo gudboonaatay ninkaas odayga ahaa duruufo ayaa la soo gudboonaaday oo xagga nolosha ah. deyn buu ka soo qaatay, dad fara badan ayuu wax ka soo amahday xoogaa lacagyo ah. deyntii ayuu iska bixin kari waayey marka maalintii kale waxa uu ku fekeray markaa in uu u tago nin taajir ah uu ka soo amahdo lacag si uu isaga bixiyo deynka dadka, maadaama su-aashii dadka ay ku badatay oo ahayd bal goormaad noo soo celinaysaa lacagyoogaynii. dabadeed ninka taajirka ayaa wuxuu ka soo qaatay lacag 500 oo diinaar ah ayuu ka soo qaatay si uu isaga bixiyo deynka dadka inuu isaga bixiyo. ninkii odayga ahaa ee taajirka ah isaga waxay ku ballameen muddo kadib in uu u celiyo lacagtiisa, uu dib ugu celiyo. hase yeeshee waxaa dhacday in ninkii odayga ahaa wax lacaga in uu heli waayey ay duruufta ku sii adkaatay oo muddadii la gaaray. ninkii taajirka ahna waa u yimid, ay xoolaha lahaa ayaa u yimid, wuxuuna ku yidhi war walaalo waqtigi waa la gaaray, lacagtiina imaadan keenin, maantana gurigaaga kugu imiyey, bal lacagtayda ii soo celi. wuxuu ugu jawaabay niyahow waa kaa cudur daaranaya, waana ka xumahay, weli wax ma aanan helin, marka bal waqtiga ii kordhi si aan lacagtaada kugu keeno. markaasuu yidhi ma dhacayso taas, waxay ahayd in gurigayga aad igu keento lacagtayda, laakiinse anaa soo doontay maanta, marka waa inaad i bartaa lacagtayda. adugu meeshii waxay gaartay in dacwad laysku oogo. waxaa loo tegey qaadigii markii loo tegey ayaa waxa uu ku yidhi ninkii odayga ahaa ee lacagta lagu lahaa, wuxuu ku yidhi waniyow lacagta ma iska bixin karaysaa? ilaan adigaa afkaaga ka qiray inaad ninkan lacag ka qaadatay oo aad muxuu ahaa waqtigiina aad ku bixin weydo. markaasuu yidhi niyow ma bixin karayo qaadiyow, lacagta ma hayo hadda waqtigan xaadirka ah.
markaasuu yidhi haddii aadan iska bixin karin markaa saacaddan laga bilaabo waxaa tahay maxbuus oo waxaan ku dhigaynaa xabsiga ayaan ku dhigaynaa inta ehelkaaga ama dad kaloo la mid ah ay lacagta kaa bixinayaan markaasuu yidhi way wanaagsan tahaye hal codsi oo codsigaaga muxuu yahay ayuu ku yidhi qaadigii wuxuu yidhi ifasax oo reerkayga aan u tago aan u soo sheego arrintaa aan la soo socodsiiyo in aan maxbuus ahay aan la soo socodsiiyo caawana aan iska soo joogo gurigayga berritana aan idinku imaado anigoo socda oo cagahayga ku socda marka xabsiga idhig qaadigu u yaaba wuxuu yidhi adigoo dembiile ah sideen kugu sii daayaa damiin ma haysatid lacagta iskama bixin karaysid waxaa tahay maxbuus maxaan kugu sii daayaa markaasuu wuxuu yidhi waxaad ka markhaati kacdaa qaadiyow in nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh in uu yahay damiinkayga taasi markhaati ka noqo nebi maxamed ayaa damiin iga ah taasi markhaati ka noqo haddii markaa aan berri kuu imaan waayo anugu ka mid ma ahi dadka mu'miniinta ee xaqa u leh shafaacada nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh yowm alqiyaama qaadigii wuu eegay wuxuu markaasi uu qiimeeyey darajada nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh markaasuu yidhi waa yahay orod damiinta nebi maxamed ayaan kugu sii daynay maadaama aad cuskatay nebi maxamed waa ku sii daynay bal berrito halkan kaa sugaynaa ninka odagaa wuu tegey guriga markuu tegay xaaskiisu ayuu la kulmay arrintii ayuu uga qisooday oo uga sheekeeyey markaasi xaajiyadda waxay ku tiri fadhi inooma yaala marka kol haddii damiin aad ka dhigatay nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh aan weysaysanno markaa masallaheena aan fuulno oo aan bilowno aan garaacno salliga nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh aan caawo dhan aan si fiican u garaacno adu sidii ayay yeeleen masallahooda ayay ku fadhiisteen oo weysaysteen salliga nabiga ayaa la bilaabay oo lagu wardiyo sida loo wardinayay markaa ayaa waxaa ayaa u timid lulo kadib way iska seexdeen way hurdoodeen ninkii odayga ahaa isagoo hurdada ku dhex jira ayaa waxa uu riyo ku arkay nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuuna ku yidhi war ninkanow waa ku salaamayaa marka hore marka xigtaana berritoole marka aad waabariisato waxaad u tegaysaa waaliga magaalada waa guddoomiyaha magaalada u tag ninka xukuma magaalada u tag waxaadna gaarsiisaa salaantayda oo waxaad ku tidhahdaa rasuulka alla maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh ayaa kugu soo salaamay wuxuuna ku soo faray aad ku tidhahdaa markaa kadib daynteyda in aad iga bixiso oo 500 oo laygu leeyahay dirham ee dinaar intaas u raaci waxaa laga yaabaa in uu kugu yiraahdo warniyo maxaan kugu rumeeyaa waxa aad sheegaysa inay jiraan in kale inay yihiin waa sax nabiga ninka ku riyooda riyadaas inay xaq tahay oo aragtidaas ay xaq tahay oo nabiga uu arkay sida nabigeena ka sugnaatay salawaatullahi wasalaamu caleyh oo yidhi man ra'aani fi lmanaam faadi ru'ya xaq marka maxaan kugu rumeeyaa markaas wuxuu nabigeena maxamed wuxuu yidhi markuu sidaa kugu yiraahdo su-aasha hadduu ku weydiyo waxaad ku tiraahdaa nin yahow ma jirtaa in aad ku salliso habeen kasta nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh ilaa iyo 1000 jeer ma jirtaa ku dheh hadduu haa kugu yiraahdo waxaad ku tiraahdaa haddana habeenkii ugu dambaysay tirada 1000 ayd makaa qaldantay oo shaki makaa galay dabadeed ma iska seexatay marka waxaad ku tiraahdaa nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh waxa uu kugu yidhi habeenka shaki wuu kaa galay tiradana salligaagu wuu isoo gaaray ilaah ayaana kaa abaalmarinaya marka intaas u sheeg ninka odagaa wuu soo baxay waaligii magaalada ayuu u tegey markuu u tegey markaa arrintii ayuu muxuu ahaa u sheegay markuu arrintii u sheegay oo yidhi rasuulka alla miyaa igu soo salaamay haa oo maxaan ku gartaa oo muxuu yidhi lacagtana ka bix miyuu ku yidhi haa maxaan ku gartaa wuxuu yidhi labada arrimood ma jirtaa in habeen kasta aad ku sallido nabigeena maxamed ah 1000 jeer ma jirta habeenka ugu dambaysay in tirada ay kaa qaldantay markaasuu yidhi haa waa sax alla ilaah
markaasuu waaligii inta uu yaabay ayuu 500 oo diinaar wuxuu ka soo bixiyey baytulmaalka muslimiinta. waa bangiga muslimiinta ee lagu keydin jiray ee loogu keydiyey sadaqada iyo zakada iyo lagu ururiyo ayuu 500 ka soo saaray, gacantuuna u geliyey ninkii odayga ahaa. wuxuu yidhi waatan 500 oo isaga bixi deyntii lagugu lahaa. kadibna 2500 ayuu jeebadiisa uga soo saaray oo isaga uu leeyahay. wuxuuna ku yidhi 2500na bal qaado oo xaaladaha gaarka ah ku dabaro. 500 baytulmaalka aan ka soo saarayna isaga bixi deynta. ninka odayga isagoo farxsan ayuu ka soo tagay. muxuu ku gaaray taas? salliga nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam fadliga barakadiisa ayuu ku gaaray. wuu soo baxay isagoo ordaya, wuxuu u tagay markaa qaadigii si uu u siiyo isaga bixiyo deynta lagu lahaa. waxa uu la kulmay ninka odayga ahaa waxa aanu filaynin. wuxuu la kulmay qaadiga oo sugaya aragtidiisa oo aad ugu faraxsan inuu arko. markuu u tagay wuxuu ninkan waaba yaabanaa si aan kugu arka ayaan la aaba. maxaa dhacay yiri. markaas wuxuu ku yiri waniyo barakadaada ayaa xalay waxaan ku riyooday nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam darteeda ayaan ku riyooday xalay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuuna igu yiri ninka odayga deynka ka bixi ee 500 ah maalinta qiyaamaha Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku abaalgudayay. marka walaalow waatan 500 oo isaga bixi deynta isaga bixi. ninka odayga halkaas muxuu ku haystaa 3500. isagoo yaaban ayuu soo aaday gurigii markuu soo galay oo cabaar yar joogayba linka ayaa la soo garaacay. markii la soo garaacay waxaaba taagama ninkii deynta ku lahaa. markaasuu yidhi assalaamu calaykum. calaykum salaam. markii la salaam kadib wuxuu yidhi haye ii waran. markaasuu yidhi waa kuu fiicana, waxaan kugu imidsay lacag kaama soo doono aniga. waxaan kugu imid in aan kaa saamaxo 500 aan kugu lahaa aan kuu cafiyo ayaan kugu imid. sababtoo ah barakadaada iyo fadliga salliga nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa xalay waxaan ku riyooday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuuna igu yiri ninka iska cafi. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa adigana dunuubtaada ka dhaafay maalinta qiyaamaha. marka walaalo waa ku saamaxay oo waa ku cafiyay deyntii. marka 500 kalena ku kordhiso oo ku dabaro umuraha. bal eeg walaalayaal, eega walaalay in muxuu ahaa fadliga haddii aad ka dhigato dikrigaaga maalintii dikri maalmeedkaaga haddii aad ka dhigato salliga nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam heerka aad ku gaarayso. marka ma aha adduunyada ayaa la joogaa, aakhiradu lama gaarin. waxa ilaahay uu ku diyaariyay ee aad ku quruxsatay qabrigaaga iyo daartaada dambe weli ma dhow ma aadan arkin. bal fiir ninkan adduunyada ayuu ku helay wanaagaas oo isagoo lagu lahaa 500 ayaa maanta wuxuu gacanta ku haystaa 4000 ayuu helay oo diinaar. marka walaalayaal aanu badinno salliga nabigeena maxamed sallallahu wasallam alayhi. waxaanu ku gaaraynaa martabad aad u sareysa oo Allah subhanahu wa ta'ala ayaaba nafaray. ونس آيات قرآنية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى ملائكتيسا وحا أي كسلنا يان أو رحمة حريص أي أبري أي محوها نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أي كسلنا يان مركا كوي رمييو والله سبحانه وتعالى رمي رسول كيسو كسل يا محمد صلى الله عليه وسلم عليه حريص أبري الله سبحانه وتعالى. مركا إله أيابا إسكاب الله بي adigana waxaad ku helaysaa fadli ayaad ku helaysaa oo darajo ayaad ku helaysaa. oo nabigeena waxa ka sugnaatay inuu yiri man salla alayhi salatu wahida ninkii hal jeer igu sallaya sallallahu alayhi wa sallam ilaa 10 jeer ayuu ku sallanaya fa ad'af ila ad'af al mudha'afat. waa lagu sii laalaabaya wali waa lagu sii laalaabaya.
marka waxaa wanaagsan oo habboon in aanu dhowrno dikriga wardi maalmeedkeenna in aanu badino nebigana in aanu ku sallino maalmaha waxaad arkaysaa masaajidada qaarkood markaad joogto iyadoo magacii nebiga lasoo qaaday oo dadkuna ay iska aamusan yihiin waa jirtaa qalbiga waad ka oran kartaa laakiinse waxaa fiican in lagu dhawaaqo salliga nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh ayaa ka wanaagsan oo kor loo qaada ayaa ka wanaagsan oo nin saxaabi ayaadda ka hor saas oo kale muxuu ahaa kor mar uu sare u qaada keliya salliga nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh ayaa allah subxaanahu wa tacaala oo dunuubtiisa uu ku dhaafay marka walaalayaal mawduucayga maanta halkaas ayaan kusoo gaabinayaa in sha allahu tacaala marar kaloo fara badan fadaaisha in lagu salliyo nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh wax yar ma aha qisooyin waaqici oo fara badan oo dhacay ayaa jira marka mar waliba waxaan kusoo qaadan doonaa munaasabadda ay ku habboonta ayaan kusoo qaadan doonaa insha allahu tacaala marka aan quruxsanno daarteena dambe aan quruxsanno daarta dunida waa loo ordaya waa la ogyahay oo dadku waxaa la yidhaahdaa laba shay way ku hordayaan dadka way hor ordayaan hunguri iyo hawo way ku hor ordayaan nasiib iyo nasiib darana midigta iyo bidixda ayaa kaa socdaan geerina waxay kaa socotaa xagga dambe oo mawdka xagga dambe ayuu isna kaa soo eryayaa marka adduunka ku dadaal oo wax samayso wax kasbo laakiinse aakhiradana wax u dhigo tan adduunku waa ku daalaysaa weliba laakiin midda aakhiro waa adigoo muxuu ahaa soo fariista waktigaaga wakti ka mid ah rubac saac allah ka dhigay nus saac allah ka dhigay oo ku sallaya nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh oo ku xamdiya allah subxaanahu wa tacaala subxaana allah wabixamdihi subxana allah alcadiim walaa xawla walaa quwata illa billahi alcadiim dikrigaasi waxaad ku helaysaa maasha allah ayaad ku helaysaa waxaasoo dhan marka waxay kuu dhisayaan oo ay kuu qurxinayaan oo ay kuu hagaajinayaan daartaada aakhira ayay kuu hagaajinayaan marka laa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayk marka halka ayaan kaga baxayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wa barakaatuh